كبقى الله سوى مدك إذن أبوري الناس كليا إذن كأبوري النفط وإذن كأبوري حق يذن كأبوري حاس كيسي كأبوري وآدم نفط لين كأبوري حاس كلا أبورينا وحاس كيسي حواء آدم إيا حواء مركي لأبوري وحاس سمي qoyskii ugu horeeyay oo lafqabar u noqday bulsho la yiraahdo bini aadam xawal abuur intaan aadam wax kala loo sameeynin mar alla markii jannada intuu ka yimid dhulka uu yimidba intaan macna dhulka la keeninba xawa ayuu alla ku lamaaniyay subhanahu wa ta'ala qoys bay noqdeen halkaas marka waxa ka bilowday tarankii bini aadamka wabasta minhuma rijalan katiran wa nisaa dumar farabadan iyo rag farabadan baa marka ka farcamay aadam iyo hawa arintu marka qoysku ahmiyada uu leeyahay waxa ka garani bini aadam markuu ilaahay asalkiisa abuuray waxa lagu xishiyay inuu qoys noqday qoyskaas marka caruurtii ka dhalatay bini aadamka intiisa kale ka tarmeen dumarkii ka yimaadeen raggii ka yimaadeen dariiqada kaliya marka bini aadamku ku tarmi karo ayaa waxa laga dhigay rag iyo dumar inay soo yimaadaan ilaahay baa qadaray subhanahu wa ta'ala wa qorshe rabbi subhanahu wa ta'ala laakiin mas'aladu waxay ku tusaysaa ahmiyada uu qoysku leeyahay unuga koobaad inuu yahay unuga koobaad hadduu halaabo oo geedku uu jirida ka xumaado jirida iyo salka hadduu ka xumaado iyo inuu caleentiya laamaha ka xumaado way kala geed jirida ka xumaaday ama xididada ka xumaaday waa u dhamaatay waa dhacay macnaheedu waxa weeyaan haddii qoysku xumaado bulshadaasi inay jirtay way adag haddii qoysku uu kala furfurto bulshadii waa kala daadsan haddii qoysku uu isku dhaco cudurro galo macnaha nadaafadii iyo qiimihii uu waayo iyo xishmadii bulshada dhan xishmada waa waayay hadduu qoysku barakaco bulshadu waa barakacsan hadduu qoysku nabadgeliyo waayo bulshadii nabadgeliyo la'aan hadduu qoysku diin la'aan ku dhacdo bulshadii waa diin la'aan asaaska loo noqonayo marka saldhiga u ah bulsho hadaan maqashiyo mujtamac waxa weeyaan waa qoysku hadduu dhisan yahay bulshadaas waa dhisan talabaadi waxa weeye oo ahmiyada qoyska ku tusaysaa mustaqbalka dadka lagu tala gashan yahay inay nolosha hogaamiyaan oo caruurta ah madrasada ugu horeysa iyo meesha ugu horeysay ka afbartaan ay ka soo baxaan ay waxbarashadooda iyo thaqaafadooda iyo aragtida iyo ka qaataan waa qoyska weey waa abi hooyo iyo caruurta ka waaweyn mustaqbalka ragga hogaaminaya meeshay ka soo baxaan intaynan iskuul la geynin jaamacad la geynin dad kale aynan afkooda dhageysanin waxa ay dhageysanayaan oo wax ka qaadanayaan oo wax ka arkayaan oo wax ka maqlayaan waa qoyska iyo bulshadiisa kooban afraad bulshada qoyska ee kooban ayay caruurtu wax ka qaadanayaan meesha wixii yaala hadduu xun yahayna caruur xun baa bulshada u soo baxay mid xun baa u soo go'ay bulshada u soo go'ay haddii meesha waxa yaala uu hagaagsan yahayna caruur wanaagsan iyo midho wanaagsan baa bulshada u soo go'ay mustaqbalka bulshadaasina waa hagaagayaayo de rag fiican baa u soo go'ay midho fiican baa u soo baxayo barita ay lagu tashan karay arinta rabbi rasuulkeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ayaat tilmaamay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ma min mawludin illa yuladu ala alfitrati nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntaju albahimatu bahimatan jam'a hal tajiduna fiha min jad'a abu nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi mid kasta ilma kasto la dhalo marka uu dhalanayo waxa lagu dhalaa عقيدة توصن بالغدنا إسلامي مكرشة isagoo hagaagsan oo ilaahay qalbigiisu uu ilaahay yaqaano ayuu ilmuhu dhashaa markuu dhasho oo bulshada uu qoyska dhex yimaado kadib labada dhashay ee markaa gacanta ku haya ee uu ku dhex korayo ayaa waxa ay haysteen ayay markaa kadib siiyaan hadday yahuud ahaayeen yahuudi bay ka dhigaan hadday nasaara ahaayeen nasraani bay ka dhigaan hadday majuus ahaayeen dabka caabuda majuus bay ka dhigaan ilmihii majuusi ka dhigaan markii hore muxuu dhashay isagoo hagaagsan u dhashay laakiin yaa sumaday yaa mabda'an xun ka dhaadhiciyey yaa sidan u dhigay waalidkaa sidan u dhigay nabigu tusaaluu ka bixiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi ilmaha xoolaha
neefka xoolaha markuu dhasho wuxuu dhalanayaa isagoo dhammaystiran oon dheg ka jeexnayn dheg aan go'nayn meella ka sumadnayn isagoo dhammaystiran buu dhalanaya hadhow markuu dhasho oo ilmihii neefka ahaa uu koro ayaa marka waxaad bilaabanaysa in dhegta laga gooyo dhegta la jeexo meel laga sumado yacni waxa weeye ninkii lahaa ayaa sumaduu rabo ku samaysanaya markiisa hore laakiin wuxuu dhashay isagoon sumad lahayn isagoon meel la ka jeexnayn isagoon meel la go'nayn ilmaha yarka ah ee guriga ku dhex dhalanaya ee qoyska dhexdeeda imaanaya saasoo kale ku imaanaya isagoo dhammaystiran caqiido toosan islaam ah hagaagsan ayuu imaanaya laakiin yaa sumadaya hooyadii aabbihi baa sumadaya hadday yahuud yihiin sumaddii yahuudday siinaya hadday majuus yihiin sumaddii majuustay siinaya haddii ay yihiin macnaha waxa weeye maaragtay nasaare yihiin yani sumaddii nasaaraday siinayaan yacni waalidka ayaa wuxuu yahay meesha koobaad ee ilmuhu wax ka qaato haddii waalidku akhlaaq uusan lahayn ilmaha guriga ka soo baxaya akhlaaq ma leh hadduusan waalidku diin lahayn ilma aan diin lahayn baa guriga ka yimaada haddii ayna waalidku yacni waxa weeyaan aynan daroogada iyo waxyaalaha maandooriyaha iyo waxyaalaha isticmaalaan ilmo waxaa ku koray oo ay la quman tahay baa meesha ka yimaada haddii waalidku hagaagsan yahay oo dad quman oo diin laho ilaahay ku xidhan ay yihiin ilmo diinla baa guriga ka soo baxa wahaakadaa meesha koobaad iskuulka koobaad madrasada koobaad ee ilmuhu wax ka qaato waa qoyska muhiimad wey marka sideedabana bulsho haddii la doonayo in wax laga qabtaayo oo mustaqbalkeeda wax laga qabtaayo meesha wax laga dhisaayo waa carruurta maalan tusaalan idin siinaya reer galbeedku maalan markay kusoo duuleen caalamulislaamiya ay kusoo duuleen oy doonayeen qazulfikri maskaxda inay kaga duulaan duulaankii iyo dagaalkii ciidamada iyo waxyaalahan inta laga baxay laysku daya caalamulislaami fikrad ahaan iyo manhaj ahaan in loola dagaalamo dagaalku wuxuu ka bilowday dadkii da'yarta ahaa iyo carruurtii iyo manaahijtii waxbarashada in laysla helo meeshaasi wax ka bilowday markii intaa laysla helay carruur waxaa soo baxday aan calaaqa la lahayn taariikhdii dheereed ee islaamka aan calaaqa la lahayn guushii muslimiinta aan calaaqa la lahayn bulshadii muslimka aan calaaqa la lahayn diintii islaamka wixii qiimo lahaa oo dhan agtooda ayna qiimo ka lahayn limaada lianna waxa weeyaan waxaa lagu guulaystay intay da'yaraayeen in la dhisto oo la samaysto oo sidii la rabo loo sameeyo meeshaasina arrintaasina waxay kutusaysaa ahmiyadda uu leeyahay qoysku ayay kutusaysaa bini aadamka tarankiisa ayaa ku xidhan qoyska haddii uusan qoys jirin bini aadamka tarankiisu ma jirayo saas daraaddeed baa shareecada islaamka iyo diinta islaamku waxay walaalayaal inugula talisay oo aad ugu dadaashay sidii loo dhisi lahaa qoyska loo dhisi lahaa qoyska dhismihiisa lagu dadaala leh limaada lianna jiritaankii bini aadamkaa ku xidhan haddaan qoys jirin bini aadamkii ma jirayo haddii la yidhaahdo sida xoolaha oo kaleeto meeshii layska soo gaadhaba labadii isa soo gaadhaba waydinkaa oo qoys dhismaya ma jiro waajibaad ma jiro xuquuq ma jirto laba laysku og yahay oo bulshada yani waxa way bulshadu isku og tahay oo hebel iyo heble la yidhaahdo nin iyo xaas isu ah ma jiraan nin walowba meeshaad soo gaadha shahwadaada ku gudo hadday noqoto macnaheedu waxa weeye waxaa lumaya carruurta iyo xuquuqdii iltizaamaadkii korintii jiritaankii bini aadamka waxaana lumaya hadday noqoto sida xoolaha intaad suurto un oo kulaylka ku hayo un isdhaafiso un iska dhaqaaq bini aadamkan aad arkaysaan ma jiray adiga waxaad ku soo kortay aabba kugu xisaabtamaya iyo hooye kaa naxaysa iyo dad mustaqbalan kugu xisaabtamayo oo beerkoodii iyo jidhkoodii qayb ka mida aad tahay ayagaa ku halgamaya kuu rafaadaya hooyadii baa kugu rafaadaysa aabbihii baa kuu shaqaynaya waxay taasi ku timid waa guurkan iyo qoyskan ilaahay subxaana watacala isku lamaaniyo taa haddaynan jirin bini aadam ma jiray bini aadamkaad arkaysaan qoyskaas iyo unuga qoyska ayuu ku jiraayay bini aadamka tarankiisa iyo sii socoshadiisu ma ay soconayso saas daraaddeed baa rabbi subxaana watacaala wuxuu ina amray in qoyska la dhiso oo rabbi subxaana watacala qur-aanka wuxuu ku yidhi waankixu alayaama minkum waalsaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum
in yakunuu fuqara'a yughnihim allahu min fadlih u guuriya buu rabbi subxaana wa tacaala bulshadiyey kuwa aan hoyga lahayn ragga aan lahayn xaasaska lahayn iyo dumarka aan ragga lahayn u guuriya buu rabbi subxana wa tacaala hadday fuqara yihiin oo waxba aynan haysanin ilaahay baa deeq waa ka nabigeena odhanaya salawatu rabbi wasalaamu calayh saddex ilaahay baa subxaana wa tacaala xaq iskaga dhigay inuu u kaalmaynayo saddexdaas waa ninka guurdoonka oo guursanaya isagoo ujeeddadiisu ay tahay inuu ku dhowrsado oo zine iskaga ilaaliyo ilaahay baa xaq iskaga dhigay inuu caawinayo o u kaalmaynayo ka labaad waa ninka addoonka oo sayidkiisa la heshiiyey oo mukaasabka la yidhaahdo oo doonayo xoolihii uu ku xoroobi lahaa oo sayidkiisa siin lahaa ilaahay baa u kaalmaynaya buu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu calayh midka saddexaad waa ninka duulaanka oo jidka ilaahay subxana wa tacala ku maqan wey saddexdaaba ilahay baa damaano qaaday subxana wa tacala oo xaq iskaga dhigay inuu kaalmaynayo marka in yakunuu fuqara'a yughnihim allahu min fadlihi hadday fuqara yihiin oo waxba aynan haysanin allah subxaana wa tacaala baa deeqaya isagaa wax siinaya idinku u guuriya bu rabbi ilahi subxana wa tacala u guuriya rasuulkeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayh raggii saxaabada ahaa ee ka codsaday inay xiniyaha isgooyaan xilli xoolana ayna haysanin xoolo ay ku guursadaanna ma haystaan guurna waa u baahan yihiin oo shahwadii waa haystaa niman ku mashquulsan weeye masaalixda iyo danaha muslimiintana way ku mashquulsan yihiin markaasay u yimaadeen nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh waxay ku dhahdeen nebi allow waxaan rabnaa inaan ilaahay diintiisa u go'ne iyo aakharo u go'ne kulaylkan iyo shahwadan dhibkeeda si aan uga nasanno xiniyaha ma iska goynaaba nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa diiday maya buu nebigu yuri salawatu rabbi wasalamu calayh maya diintani ma aha diintii sidii suufiyadii nasaarada oo kale duurka la geli jiray ma ahee rabbi subxaana wa tacaala wuxuu idiin qoray raadiya oo wixii ilaahay idinku talagalayna shahwada ku guta buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalamu calayh amaa waa isdhufaanaynaa iyo xiniyaha isjaraynaa iyo maya raggii guursan mayna yidhi saddexda ahaa midkood uu yidhi anigu caawo o dhan baan soo jeedayaayo seexan maayo midna uu yidhi anigu maya hilibba cuni maayo weligay ninna uu yidhi anigu dumarba weligay guursan maayo nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam anigu habeenkii qaarna waan seexan qaarna waan soo jeediyo waan cibaadaysan maalmaha qaarna waan soomi qaarna waan afurnaan hilibkana waan cuni dumarkana waan guursan sunnadaydaa ninkii ka leexdow iga mid ma tihid buu nabi yuri salawatu rabbi wasalaamu calayh sunnadaydaa guursiga ninkii ka leexdow iga mid ma tihid buu rasuulku yuri salawatu rabbi wasalamu calayh limaada lianna guurku waa sunnatu alambiyaa rususha ilaahay subxana wa tacaala iyo nebiyada sunnadii iyo caadada laga soo gaadhay jidka laga soo gaadhay waa guurka rasuulku marka waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh raggii damcay inay aakharo un isaga go'aan oo cibaado ilaahay u go'aan oo dhib iyo carruur iyo rafaad iyo adduunyadiiyo kadeedkeeda ka tagaan nebigu waa diiday salawatu rabbi wasalam guursada buu rasulku yuri salawatu rabbi wasalam calayh waxaad garan kartaa marka ahmiyadda ay diinta islaamku siisay qoyska iyo dhisidiisa waxaa ka mid ah nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh si khaasa wuxuu ula hadlay dhallinyarada oo dee dhallinyarada nebigu wuxuu ula hadlayaa mawduuca uu kala hadlaya baa wuxuu yahay mawduucay dhallinyaradu kaga firfircoon tahay odayaasha iyo dadka da'oobay wuxuu nebigu yuri sal lla alay waslam yaa macshara ashabaab man istataaca minkum alba'ata falyatazawaj buu nebi yuri salawatu rabbi waslamu calayh dhallinyaradii ciddii kharashka guurka ka bixi kartaay ha guursata buu nebi yuri salawatu rabbi waslamu calayh ha la guursado bal nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa uu inagula dardaarmay in guurka la badiyo leanna nebigu sal lla alay waslam wuxuu ku xisaabtamayaa sida uu inoo sheegay aakhare marka la tago oo rususha nin walba uu keensado dadkii raacsanaa waxaan doonayaa ummadaydu inay badato buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu calayh yacni waxa weeya saas daraaddeed calaa hada alasaas qoysaska muslimku inuu bato bulshadu ay barakowdo qoyskii markuu dhismo carruur baa ka imaanaysa marti buu yeelanayaa mudanuu yeelanayaa yacni waxa weye xidid buu yeelanayaa qaraabuu yeelanayaa waa si qaab ay bulshadu isu dhex gasho u xidhiidho weeye qoyskii marka sinaba loogama maarmo waa asaas lagama maarmaan ah sidaas daraaddeed baa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi tazawajuu
فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كالرهبانية النصارى أبو نبي صلوات ربي والسلام عليه. حديث كإمام البيهقي مصوصاري الشيخ الألباني عليه رحمة الله وحوله وحسن حديث كوحوليه هاي هنقنين أبو النبي صلى الله عليه وسلم سيدا النصارى suufiyadoo duurgalka ah oo kala noqonina nasaarada iyo kristiyaanka waxay lahaan jireen ma qanaada inay leeyihiin kaleete niman intay adduunyada iskaga dhaxbaxaan oo meelaha baadiyaha iyo hawdka iyo intay ka dhistaan meel ay ku cibaadaystaan halka dadka kaga go'a oo meesha ku cibaadaystay lahaan jireen oo naag aqoonin guur aqoonin caruur aqoonin shaqo iyo ganacsi aqoonin kuwaas oo kala noqonina Abu Nabi sallallahu alayhi wasallam diintan ma aha sidii ruhbaaniyadii nasaarada kale waa xaniifiyatu samha waxa rabbi ku kulmiyay adduunyada iyo aakhiradiiba waa idin ku kulmiyay saacadna diintaada aakhiradaada mustaqbalkaaga saacadna xuquuqdaadii adduunyada iyo biilkaagiisa Hanzala al-Asadi saxaabiga loo oran jiray waa ka nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri Hanzala al-Asadi sahih muslim ku yaala hadith Abu Bakr as-Siddiq buu yiri markaas wuxuu yiri Abu Bakr ninkii loo oran jiray Hanzala waa munaafiqoobay isaga isku wada markaas wuxuu yiri war maxay tahay waxa sheegay war waan munaafiqoobay war seeneedahay sidku munaafiqoobay wuxuu yiri nabiga markaan la fadhino oo ilaahayna xusuusinayo oo janno iyo uu nooga warramayo naar nooga warramayo waxaad moodaa buu qalbiga naga sidoo u saamoobayo sidii anagoo jannada iyo naartii arkayno kale markaan ka tagnana oo caruurtii iyo xoolihii iyo hantidii markaan dhex galana wixii qalbiga naga ku jiro dhow halmaamayna isbedel baa qalbiga naga ku dhacay saas daraadeed munaafiq baan ahay munaafiq waa isbedel lagu yaqaanay Abu Bakr as-Siddiq buu sheegay markaas uu Abu Bakr waraniga laftayda dhibka waa ay haystay bal ina keem aniga laftayda ma kula qabee bal ina keem waa israa'il rasuulka ay wada tagay sallallahu alayhi wasallam Hanzala Allah wuxuu yiri nabi Muhammadow Hanzala waa munaafiqoobay maxaa dhacay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri nabiyow sana la haysto markaan kula joogno dawaaninayso shanni iyo naar inaan aragnaad moodaa haddaan ka tagno oo xoolihii iyo caruurtii iyo dhaxgalana isbedel baan ugu dhacay nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ilaahay baan ku dhaartay haddaad ahaan lahaydeen oo daa'imi lahaydeen markaad ila joogtaan sidaad tihiin haddaad daa'imi lahaydeen malaa'ikta jidadka idinku salaami lahayd nabigu sallallahu alayhi wasallam walakin saa'atan wa saa'atan ya Hanzala nabigu sallallahu alayhi wasallam saa'ad iyo saa'ad nabigu sallallahu alayhi wasallam hal laga wadaa saa'ad adduunyada saa'adna aakhirada bini aadam baa tahay shahwa lagu saaray waajibaad baa lagu saaray caruur baa kugu tacalluqda xaas baa kugu tacalluqa naftaadii iyo doonideedii baa kugu tacalluqda saas daraadeed saacad adduunyadaada saacadna aakhiradaadii ha halmaami ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحكم إذا ذاتك قارنا يا إله أدنكنا وناك نفسي آخرنا وناك نفسي عذابكنا إله نغيلان وحكوه الرجل جروب كراه فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق يعني قالوا حاسس يقولون يا إله أدنك وحنسي إله حولئتي بعديث وإنت إله حولئتي أيه إله عرور إتي أيه إله حاس يقدر هيه إله قري يقدر هيه إله قارئ يقدر هيه إله آخر وحسيبكم بشتم قاموس كيسية جدول كيسة هذا بعضها قضب آخر حصها يكون بشربه قال الله إلهي وحي سبحانه وتعالى وعدل عيسين كوي لكن كوى إلهي أماني وحوي وكوى الدنيا دي إيه آخر دي بإسكوة طول آخر دينا قعنت ميدي كتابة يقول شفتا الدون كودينا قعنت بجحل كويسة وما الله ما ديني سبحانه وتعالى إلهي بابا إنه مقل قالني دين مركزة وحي تقول اللي سرتوي إيه معها دين في النصارى ده إلهي الدور كقلع قناعتك كتقع مقالويك كتقع تكنولوجيا ده كفايدة سنينة يعني هرمرك طافة حضارة كتجا دور كجلق الروبانية والسوفية النقطة دين تي ولا الجماعة دين الإسلام ساسمة وحي لا ده واحد قوة ده حقنا هو بدننا دين حداد بدن إنسان تنك آخره
إلا يدا الرأس مال الرسمي صح ثاني واحد لانتيت بريت اللي قد قاقيه haddaad dhinac u badanaysaan dhanka aakhira u bata laakiin dhanka adduunyo ma isku wada wixii saas la doonaya macna walaalayaal marka yaani rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu alayhi saasuna leeyahay saladaasi marka waxaan ula jeedaa qoyska dhismihiisu waa mabda kamida mabaadi'da asaasiga ee diintii nabi maxamed leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi saas way macna